kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee janalkana qodobada aan kugu helan waxaa kamid noqon doona siyaasiyiinta beesha Habar Gidir ayaa isku raacay qofkii lagu bedel lahaa Cali Yara Cali ku-xigeenka dhanka amnigiisa sida maamulka gobolka Banaadir nidaamkii farmaajo ayuu ka haray haddaba siyaasiyiinta beesha Habar Gidir ay tahay shakhsiga isku raaceen in lagu bedel Cali Yara Cali waa daawad doontaan waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa kala diray guddigii adeega garsoorka ee la dagaalanka musuqmaasuqa haddaba maxay tahay sababta uu kala diray xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo guddigan uu dhisay dib adagna ka maray dhistaanka daba nidaamka damudajid waxaa la sheegayaa in ay banaysanayaan dhul boob hor leh maadaama guddiga musuqmaasuqa la kala diray waan idin soo gudbin doonaa hantida dadweynaha oo markaas alla u maqan xaaladuna ay cakaran tahay waxaa kaloo daawan doontaan ceeb iyo fadeexad weyn ayuu dhex dabaalinayaa gudoomiyihii dhammaan golaha shacabka baarlamaanka Aadan Madoobe oo maanta u safray dalka Netherlands waxaana markaas la sheegay inay u wacday hay'ad u oleysa xuquuqda dadka isku jinsiga ragga isku galmoonaya subhanallah waa gudoomiyihii baarlamaanka arintaasi muxuu ka damacsan yahay waan idin soo gudbin doonaa qodobatan ku faahfaahin doonaa warar kale caalamka diblomaasiyadda fadlan haddaad nagu soo subscribe kuna soo kambalkan furo una sii shargalay saaxiibadiina meel kasta joogaan idinkoo kumatiga laagana inuu reebaya aad baad u mahadsantihiin insha Allah saaxiibayaal waxaan ku dadaali doonaa in aan idin soo gudbino had jeer wararka ugu waaweyn ee wadanka iyo markaas caalamka ka dhaca idinkana subscribe kana saara oo u sii shargalay saaxiibadiina aan ku bilaawno siyaasiyiinta beesha Habar Gidir ayaa lagu soo waramayaa in ay isku raaceen ninkii lagu bedeli lahaa Cali Yara Cali gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir nidaamkii farmaajo ayuu ka haray waana shakhsiga ilaa imika mucaaradka ugu weyn dowladda imika jirtay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa shis laga gaaray loolan iyo tartan awood qaybsi ah oo u dhaxeeyay siyaasiyiinta beesha Habar Gidir ee taageersan madaxweyne Xasan Sheekh arrintan isku haya ayaa ahayd cidda loo magacaabayo xilka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo awood qaybsi ahaan ee beesha ay ugu leedahay maamulka gobolka wararka ayaa sheegay in xilkan uu hore ugu fadhiyay Cali Yara Cali oo kamid ahaa taageerayaasha farmaajo dood dheer kadib laga heshiiyey qofka loo magacaabayo ee lagu bedel lahaa Cali Yara waxaana markaas isku histay meelaha Ceer iyo Saleebaan agaasimaha Samahad Maxamed Salax oo dhinaca iyo xildhibaan Saabir Shuuriye Abshir Buqaari milkiilaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa oo kala matalaya labada beelood ayaa isku afgartay in xilkaas loo siiyo beesha Saleebaan iyadoo markaas la filayay in mar kale loo magacaabo Maxamed Axmed Yariye iyabo oo xilkan hore u soo qabtay haddana ah maari ku-xigeenka degmada Muqdisho magacaabida gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ayaa weli la magacaabin iyadoona gudoomiyaha cusub ee gobolka weli ku shaqeynayo laba kamid ah gudoomiye ku-xigeenadii hore Cali Yara Cali ayaa dib uga laaban shaqada maamulka gobolka Banaadir tan iyo markii doorashada loogu adkaaday madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo inkastoo uu mushaarkiisa iska qaato waxaana ay howshiisa ugu weyn ee xilligan tahay inuu baraha bulshada ka taageero madaxweynihii hore ee Soomaaliya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegaya inay awood badan iyo saameyn ay ku leeyihiin siyaasiyiinta beesha Habar Gidir oo xilal muhiim ah ka qabtay madaxtooyada iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya shakhsiga ugu weyn la imika waa markaas Abshir Buqaari oo haddaba la sheegay inuu yahay milkiilaha cusub nidaamka hadda jira bal markaana aan eegno ceeb iyo fadeexad weyn ayaa markaasi dul hooganaysa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Madoobe waxaana ceebtaas ugu weyn ay tahay kadib maanta markii uu shaaciyay inuu safar u yahay dalka Netherlands waxa uu yeertay baaliyaad u oleysa xuquuqda Kiribiyaanka ee dadka isku jinsiga ayaa casuumaad u fidiyay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe gudoomiyaha ayaa saaka u amabaxay wadanka Netherlands oo ku tagay casuumaad qolada qarabaan u fidiyeen xildhibaan dayax oo kamid ah mudanaasha golaha shacabka oo fariin walaac xambaarsan ka daba diray gudoomiyaha Aadan Madoobe ayaa yiri bismillaah waxaan rabaa inaan ka hadlo safarka gudoomiyaha Aadan Madoobe ee maanta ugu ambaxay dalka Netherlands safarka gudoomiyaha waxa uu gudaamin buu yiri gudoomiyaha xiriirka sharciga jinsiga iyadoo aan ognahay buu yiri hay'adaha markaas casuumay in ay yihiin kuwa u olaya arrimaha jinsiga si gaar ah xuquuqda ugu raadiya kaniisiinta iyo ku markaasi la halmaala ee LGBT-da loo yaqaano ceeb iyo fadeexad weyn ayaana dul hooganaysa tuunka arrintaas la xiriira maadaama gudoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka ee dhammaa in uu u ololeeyo arrimaha dadka isku galmooda ee kaniisiinta isku jinsiga sidaa daraaddeed gudoomiyaha Madoobe waxaan ugu tegayaa buu yiri wax walba oo ka hor imaanaya diinteena suuban iyo dhaqankeena Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimiinta ah culimada waxgaradka iyo madaxda kale ee mas'uuliyiinta ka saaran tahay ilaalinta sharafka iyo diinta ummadan waa inay markaas ka digtoonaadaan gudoomiyaha Madoobe wax walba oo aan sal u lahayn
ummadan Soomaaliyeed oo muslimiinta ah haddii uu markaas uu kala soo laabto waddankaas Netherland uu maanta aaday dad badan oo sidaan oo kale hore uga hadlayay arrimaha jinsiga oo mas'uuliyiin dowladda ka tirsan loogu eedeynayay baarlamaankii hore la soo dhaafay ayaa shakhsiyaad sidaan oo kale ugu dhex sheegeen in wax walba ay caadi tahay rag iyo rag markaas ay isguursan karaan ama is-aroos karaan taa oo fadeexad weyn ay ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo shakhsiyaadka arrintaas kala waajiyay qabiil dhexya daawanaysan saaxiibayaal hadda noqoto subscribe noo sarka balka furo una sii share garay saaxiibadii meel kasta jooga idinku kumatiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya tiimkiisa Damuudjiid ayaa markaan u hanqaltaagaya dhul boob aad u xoogan oo lagu sameeyo dadka shacabka hantidooda madaxweynaha ayaa markaa si kala diray golaha adeega garsoorka iyo guddiga dagaalanka musuqmaasuq waa la yaab iyo fadeexado kale oo weyn oo markaasi tiimka Damuudjiid ay ku kacayaan madaxweynaha markuu arkay baalidi xeerarka kala duwan iyo nidaamyada aan waafaqsan nidaamkii loo maray habraacyadaas ay yihiin kuwa markaasi aan sharci waafaqsaneyn madaxweynaha oo ka duulaya ahamiyadda ay labadan guddi u leeyihiin dowladnimada Soomaaliyeed iyo sida ay laga maarmaan ku tahay in dhismahooda loo maro nidaam waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka iyo xukuumadda faray inay u soo dhisaan labadan guddi si waafaqsan qodobada 109 iyo 112 ee dastuurka ku-meelgaarka iyo qodobka 7 iyo sharciga dhisida golaha adeega garsoorka iyo magacaabida guddiga madaxa bannaan ee dagaalanka musuqmaasuqa madaxweynaha ayaa markaas tilmaamay in la baabiyay dhammaan wixii go'aano ahaa ay gaareen muddadii la howlgeliyay xubnaha golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee dagaalanka musuqmaasuqa heerka madaxweynaha ayaa dhaqangalaya 9 Oktoobar dabcan waa maanta oo markii lagu baahiyay faafinta rasmiga ee dowladda dad badan ayaa dowladda su'aal ka keenay sababta loo kala diray guddigan golaha adeega garsoorka ee markaas la dagaalanka musuqmaasuqa nidaamkii hore ayaa ansixiyay waxaana sheegay nidaamkii hore inay la dagaalamayeen arrimaha musuqmaasuqa ku takrifalka awoodda ka baxsan sharciyada asaasha imika nidaamkan cusub oo lagu eedeeyo dhulboobka hantida dadweynaha cidda shacabka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada hantida kala duwan ay leeyihiin ayaa imikaba u sii hanqalka taagaya in markaas ay dadka shacabka hantidooda ay si laba jibaaran si u dhici lahaayeen qabiilka gabagabada ayaan isa soo gaaran daawadaan hadda noqoto subscribe noo sarkan balka furo una sii share garay saaxiibadii meel kasta jooga idinku kumatiga like inoo reebaya aad baad ugu mahadsantihiin haddii jeer si aad nala socotaana bal markaan wararkii ugu dambeeyay yaa naga soo gaaray waxay sheegayaan kaana degmada Buurburti halkaas dagaalo culus oo ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo al-shabaab xubno ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inay weerar ay ku soo qaadeen saldhigga ciidanka halkaas ay ku hayeen waxaa halkaas ka socda dagaalo hubka nuuciisa kala duwan la isku adeegsanayo wararka la helayo ayaa tilmaamaya in weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka Jicbow oo dhinaca koonfur ka xiga magaalada Buurburti ee gobolkaasi halkaas oo rasaas xooggan ay ka socoto wararka hordhaca ay leeyahay ayaa sheegay in ciidamada ay markaas isbahaysanayaan ay si xoogan iskaga caabinayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku dayay inay la wareegaan saldhigyada waxaana jira khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac sida ilo madax bannaan ay xaqiijiyeen digasa magaalada Buurburti oo ah meelaha ugu muhiimsan ee Hiiraan ay ka socdaan abaabulka dagaal ee ka dhanka al-shabaab halkaas isku urursanaya ciidamo badan oo ku wajahan Boqori iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan wararka arrimaha caalamka ee gobolkan waxa ugu waaweyn Djibouti ayaa markaas si kul uga hashay warar askar loogu diray oo kooxo fallaaga ay ka geysteen gudaha waddankaasi ilaa 12 askar ayaa la sheegay in la dilay kuwa ka dambeeyay kooxo abaabulan oo fallaaga ah oo la qoon heebtooda ayagoo markaas soo bandhigay meedadkoodana madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa war qoraal ka soo saaray askartaada isagoona si kul ugu cabaariyay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay fal wuxuusnimo oo fulinimo ah oo markaas ay geysteen waxa markaas argagixisada ay wararkaas soo abaabulaya wararkii waaweyn ee Soomaaliya caalamka dalkeena waa nagita waa 9 bisha Oktoobar 2022 daawaday haddii aad nagu xubtahay ilmaha subscribe na tiraado aad baad u mahadsantihiin